kusoo dhawow Qaraax Tube fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale. Macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid Zinedine Zidane ayaa hogaaminaya liiska 11 tababare oo loo soo xulay inay yihiin tababarayaasha ku dagaalami doona abaalmarinta FIFA Best Coach. Tababaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa laga waayay liiskan kaas oo sanadihii ugu dambeeyay xaalad adag ku jiray. 11 tababare ee ku dagaalami doona abaalmarintan waxaa kamid ah Massimiliano Allegri, sidoo kale tababaraha lagu magacaabo Standelef, tababaraha xulka qaranka dalka Croatia Zlatko Dalic, Didier Deschamps, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Roberto Martinez, Diego Simeone, Gareth Southgate, Ernesto Valverde iyo sidoo kale Zinedine Zidane. Abaalmarinta Best FIFA Man Coach waxaa la aasaasay sanado badan iyadoo 3 July 2012 iyo 15 July 2018 abaalmarintan dib loo soo casriyeeyay sababtoo ah markeedii hore 2009 ayaa ugu dambeysay in la bixiyo kadibna waxaa la isku daray FIFA iyo sidoo kale abaalmarinta Ballon d'Or-ka. Tababarihii hore kooxda kubadda cagta Real Madrid Zinedine Zidane ayaa 2017 ku guuleystay abaalmarintan isagoo ka qaaday shakhsiyaad badan sababtoo ah Real Madrid ayuu ka saaciday ku guuleysiga tartanka Champions League. inkastoo sanadkan uu sidoo kale ku guuleystay tartanka haddana uu iska dhaafay abaalmarinta waxaa lagu qaban doonaa London 24 bisha September. Waad ku mahadsantahay daawashada videogan, fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad subscribe mahadsanid.